السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لين دنانتو waxay ka mid tahay khudaarta loo isticmaalo caafimaad ahaan. Waxaanay xeeldheerayaasha caafimaadka qaarkood sheegeen inay kaalinta saddexaad kaga jirto khudaarta laga helo caafimaadka, iyadoo dhakhaatiirta qaarkoodna ay la yaab ku tilmaameen sababta in badan bulshada loogu soo bandhigi waayay faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo liin dhanaanta. Haddaba isticmaalka biyaha laga toojiyo liin dhanaantu waxay la dagaalamaan dhammaan igfashanka noocyadiisa kala duwan. waxaanay wanaajiyaan shaqada dheefshiidka, waxaanay hoos u dhigaan miisaanka saayidka ah ee ku jira jidhka, iyadoo liin dhanaantu ay qani ku tahay faytamiin C-ga. Sidoo kalena biyaha laga toojiyo liin dhanaantu waxay wanaajiyaan caafimaad qabka beerka, iyagoo beerkana ka caawiya inuu iska difaaco sunta kaga imanaysa jidhka. Isla markaana biyaha laga toojiyo liin dhanaantu waxay kor u qaadaan difaaca jidhka, waxaanay la dagaalamaan bakteeriyada ka dhalan karta biyaha la cabo. isla markaana biyahan laga toojiyo liin dhanaantu waxay u fiican yihiin caafimaad qabka meelaha kala goysyada ah ee jidhka. Waxa kale oo jidhka ka saaraan sunta, waxaanay wanaajiyaan maqaarka sare ee jidhka. Waxaana ku jira liin dhanaanta maadooyinka ugu fiican sifaynta iyo caafimaad qabka kelyaha. Iyadoo haddaba liin dhanaanta aad u isticmaali karto inaad dusha kaga toojiso cuntooyinka aad cunayso, haddana waxay ku si fiican tahay in koob shaaho bigaysa jeex liin dhanaana aad ku toojiso oo aad cabto subaxii, ama koob biyo diirana jeex liin dhanaan aad ku toojiso oo aad cabto subaxdii quraacda ka hor. Waxaana muhiima qofka caloosha nabar ku leeyahay inuu la tashado dhakhtarkiisa inta aanu isticmaalin ka hor.